waxaad ogaataan ikhwaani qofka salaada qurxiyay laakiin qalbigiisii uusan joogin markuu salaada tukanayo salaada uu tukaday salaad ma aha u fiirsada bal salaada uu tukaday salaad ma aha waxaa dhacday waxaa la yidhaahdaa xasan albasri ayaa maalin wuxuu tujiyey dadka marka salaadii buu u gagafay xoogaa uu isku dhex khalday markuu salaadii ka baxay buu dadka weydiiyey wuxuu yidhi salaadii waxbaan iga qastmay miyaan dheereeyey mise waan gaabiyey nin musalliinta ka mid ah wuxuu yidhi waad gaabisay nin khushuucsan wey maasha allah seed ka ogaatay kayfa carafta markaasuu wuxuu yidhi niyahow markaa salaada geshid ayaan waxaan aadi jiray beertayda marka beertaan ka shaqayn jiray markaan beerta ka shaqeeyo addoommadii kala amro kala hagaajiyo albaabka aan ka soo noqdon ka soo tago ayaa wuxuu salaada ka bixi jirtay maanta anoo weli sii socdo oo beertii dhex galay baa salaadii ka baxday marka waxaan ku ogaaday inaad gaabisay baan ogaaday waxbaa kaa maqan marka wuxuu salaadiisa ku qiyaasaya qofku fakirkii uu fakarayay inta la tukanayay hadda dad badan baa saasa salaada marka la galo maskaxdiisa way safraysaa في كل وادي يهيم مeel kasto oo uu galaya soo u wareegayo markii salaada laga baxo buu qalbigiisa soo noqonaya qofka salaad muusa tukanin hadaad salaada hagaajisid oo aad u hagaajisid muuqaalka nabiga sallallahu alayhi wasallam suu sallu kama ra'aytumuni usalli adoo daahirka u tukanaya oo rukuucda iyo sujuudi si fiican u dhameystiraya haduusa qalbigaagii joogin ma aad khushuucin qalbiga muhiim ah ikhwani hadaad markii salaada la gala safarto oo meel kale qalbigaagii jiro ma aadan khushuuc ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث بخاري ومسلم كسغان حديث نعمان بن بشير محيي ألا وإن في الجسد مضغة إذا الجسد كله وإذا فسد الجسد كله جيرك waxaa ku jira xubin hadii uu wanaagsanaado xubnaha dhan way hagaagaan haduu halaabana xubnaha dhan way halaabaan hadaad qalbigaaga gacanta ku haysato marka aad tukanayso macnaheedu waxa weeye salaada aad gacantii kugu jirtaa hadii qalbigaagii aadan haynin oo waadi kasta uu iska galayo oo aad wax xisaabinayso oo aad sheekooyin kala dabarayso ma aad tukanin